Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasim Media. Kusoo dhawaada qaybtii 12aad ee qisada Hodan iyo Haaruun. Waxaa shaqada ka timid Hodan oo waa galab gaabad, waxayna Hodan iyo maamada isla fariisteen qolkii martida si ay u wada hadlaan oo ay cidi u maqan hadalkooda. Hodan baa tiri, hooyo Haaruun weli ma u sheegin xaqiiqdii iyo cidda aan ahay. Ma garanayo siduu ugu falcelin doono. Waxaan rabaa marka hore inaad iiga waranto inuu sugitaanka uu sugayay Hodan uu ka yahay jacayl ama in uu ka yahay shalay uu ka shalaynayo dhaqamadiisii iyo shilkii ay gashay kaliya. Maamada baa ku tiri, isug hooyo, waxaan soo qabanayaa kombiyuutarkaaga iyo flash aan hayo si aan kuu tuso arrin. Maamada way soo laabatay iyadoo sida kombiyuutarkii Hodan iyo flash ay hore u haysay. Maamadii baa ku tiri, flashkani waxaan ku keediyay sawirro iyo fiidiyow badan oo aan duubay kadib shilkii uu kugu waayay Haaruun. Daawo xaaladiisa sida ay noqotay. Markuu ku waayay wuxuu ku xirnaa qolkiisa muddo 3 bilood ah oo uusan u soo bixin banaanka. Wuxuu noqday qof aadan garanaynin, bal eeg sawirkan. Ma cunaynin raashin ku filan, ma aadaynin shaqada, ma qabanaynin telefoon, ma hurdaynin. Waxaa ku dhacay stress iyo niyad-jab aad u weyn ilaa dhakhtarka lagu celiyo marar badan. Waxaan u sheegay in uu qadar ku dhacay Hodan oosan dambi ku lahayn wixii ku dhacay oo aysan ahayn in uu shalayo balse uu ku qanco qadarta Rabbi. Wuxuu ii sheegay in uu doonayay in uu la kulmo waalidka Hodan oo uu raali geliyo, Hodanna uu raali geliyo, una sheego in uu si dhab ah u jecel yahay, una mar dambe dhaqan xun iyo dabeecad qalafsan uu kula dhaqmi doonin. Waxa uu qorsheysnaa in uu aroos labaad oo aad u qurxoon kugu dhigo waalidkaaga agtiisa oo uu kugu hilmaamsiiyo dhaqankii adkaa ee uu 3 sano kugula dhaqmayay. Maamada ayaa Hodan ku tiri, wiilkayga aad buu ku jecel yahay, ilaa iyo haddana ma seexdo isagoon sawirkaaga dhigin barkintiisa oo muuqaaga ku seexanin. Shalay oo kaliya hadday ka tahay wuu ka daali lahaa shalayga badan, laakiin jacaylka waa mid aan laga daalin si walba oo ay sanaduhu u dheeraadaan. Haaruun wuxuu ka oysinayay muddo 3 sano ah, balse Ilaahay ayaa kaaga arguday oo ka oysiiyay muddo 6 sano ah. Sidaas darteed, hooyo, hadda waxaan kaa rajaynayaa in aad heshay jawaabtii uu qalbigaaga in muddo ah raadinayay. Waxaan kaa codsanayaa in aad iska saamaxdo isaga maadaama uu maray ciqaabtiisii. Hodan ayaa aad ugu xumaatay wixii ku dhacay Haaruun ee uu soo maray 6 sano ay ka maqneed, waxayna go'aan ku gaartay in ay isku sheegto cidda ay tahay. Hodan ayaa intaysan seexanin fiirisay saacadda. Waxay aragtay in ay 6 maalin ka dhiman tahay sanad guuradii arooskooda iyada iyo Haaruun, oo intay faraxday ayay tiri waa waqtigii ugu habboonaa oo uu ogaan lahaa cidda aan ahay. Waxaa la gaaray habeenkii xigay. Haaruun wuxuu fadhiyaa qolka fadhiga oo uu warqado ku kala habeysanayaa. Waxaana soo dhow xilligii cashada. Hodanna waxay diyaarsatay fiidiyow ay ka samaysay xilligii cilaajkeeda dhanka xasuusta oo ay u aaday Hindiya ilaa laga gaaro sawirradii ay la soo gashay aabaheed markay xusuusta u soo laabatay. Maamada way la ogeed qorshaha Hodan, waxayna gabadhii yareed u kaxaysay kor, waxayna demisay nalkii oo dhan. Intuu Haaruun soo istaagayayna waxay bilowday daawashada fiidiyowga. Haaruun oo intuu yaabay weli taagan ayaa daawaday fiidiyowgii oo lahaa cod ay dul saartay Hodan oo ay ku sharxayso sawir walba iyo taariikhda ay qaaday iyo goobta ay joogtay markay qaadaysay. Waxaa la soo gaaray sawirradii ay la gashay aabaheed, waxayna ku tiri, kani waa aabahay, isma lahayn waxaa ku nool waalidka. Waxaa la iga sheekeeyay in labadayda waalidba ay shil ila galeen oo aysan noolayn, balse ma qiyaasi karo farxadayda haddaan midkood haysto maanta. Haaruun oo ay ilintu ka dhammaatay oo isdhahaya miyaa riyoonaysa, macquul ma ahan. Ma gabadha guriga igula nooleed 2 bilood ayaa xaaskaygii aan 6 sano raadinayay ah. Wuxuuna u cararay qolkiisa maadaama uu arkay wax aqligiisa ka weyn. Wuxuu galay suuliga, wuxuuna furay shaawirkii oo wuxuu hoos fariistay biyihii kor ka soo daadanayay si uu u dago maadaama uu oynayo sidii carruur yar oo kale. Nus saac kadib wuxuu ku soo laabtay xaalad degan. Wuxuuna ka soo baxay suuligii asagoo dhaxmoonaya oo biyaha hoos fadhiyay in muddo ah. Wuxuu galay qolkiisa, waxa uuna soo xirtay dhar qurxoon, waxa uuna soo aaday bannaanka si uu ula kulmo Hodan. Haaruun wuxuu raadiyay Hodan, wuxuuna ka helay barxadda kore ee guriga. Wuxuu arkay Hodan oo taagan fadhiga agtiisa, wuxuuna ugu dambeyn indhaha saaray xaaskiisii uu muddo 6 sano ah raadinayay.
iyadana waxaa ka dhacay culayskii ay ku haysay xaqiiqda ay muddo maalmo ah ka qarinaysay. Haaruun wuxuu dhanka Hodan u soo socdaba wuxuu soo istaagay horteeda. Waxay muddo ilbiriqsiyo ah isfiiriyaanba Haaruun wuxuu isku duubay Hodan, isla markiina wuxuu qabsaday oohin hor leh. Iyadana sidoo kale wuxuu rumaysan la'yahay in shakigii uu ka qabay gabadhaani uu run isku bedelay. Wuxuu rumaysan la'yahay in ducadiisii uu Alle u aqbalay oo uu xaaskiisii helay rafaad badan kadib, xiiso badan oo la isku qabo kadib. Haaruun iyo Hodan waxay wada fariisteen fadhigii agtooda yaalay. Waxay in muddo isfiiriyaan oo ay isla yaabanaadaanba. Waxay ugu dambeyn bilaabeen in ay wada hadlaan oo ay ka sheekeeyaan waayihii ay soo mareen iyo waqtiyadii cuslaa iyo wixii ku dhacay Hodan oo xusuusta ka qaaday intaba. Waxay habeenkaasi ku dhammaysteen sheeko Alle ku mahadin iyo isdaawasho, waxayna saacadihii dambe u hooyadeen qolalkii ay kala deganaayeen. Halkaa ha inoo joogto qaybtii 12aad ee qisada Hodan iyo Haaruun. Daawadaha ilowin inaad muuqaalka laag saarto. Haddii aad channelka cusub tahayna subscribe dheh oo furo gambaleelka si aad ula socoto qaybaha xiga. Tan intaan ku kulmayno qaybta 13aad ee qisada, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.